maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago sheekadayda ku soo laabashada YouTube. marka koowaad waxaan ka maqnaa YouTube waqti laga joogo 300 oo cisho oo dhiganta 10 bilood. marka horena YouTube waxay soo galiyay motivation, waxaan ahaa thumbnail designer walow aan rabay in aan clients ka helo. haddaba iyadoo taas jirto waxaan arkay dad badan oo iga caansan fiilkan aan ku jiro ama thumbnail design-ka horena ugu soo shaqeeyay, dad badan iyo audience ku badan oo ku xiran haysta oo hore iga caansan. sidoo kalena AI isku ay markaas soo xogaysan oo naana banana markaa uu suuqa ku jiray. waxaan isweydiiyay haddii shaqada qabanayso AI si fudud qaban karo, sidoo kalena haddii AI loo baahan waayo ay jiraan dad badan oo kaga caansan fiilkan oo adiga aan lagu arkayn, maxaad kaga duwanaan kartaa dadkaas iyo maxaa unique ku noqon kara? fikir dheer kadib waxay soo baxday in aan dhiso xirfadayda ka hor hadalka kamarada ama communication skill-kayga iyo sidoo kale editing skill-ka oo markaan aad uga hooseeyay. taas oo unique iga dhigaysay maadaama oo dadka aan la tartamayay ay dhammaantood u badnaayeen kuwa si faceless wax u soo gudbiya ama iyagoon wejigooda tusay, anigana ay fursad ahayd inaan wejigayga soo muujiyaa in aan unique ku noqon karo. taas oo keentay in aan YouTube muddadaas dheer ka dhunto. aan ka soo taabay waxaan soo noqday anoo dhisay kalsooni aad u sareysa, sidoo kalena dhisay 1000 followers dhanka TikTok, sidoo kalena generate gareeyay views-ka aad halkan ka arkaysaan, sidoo kalena edit gareynka edityada ugu caansan ee waqtigan la joogo kana hadda arkayso iyo kuwa kale oo ku qurux badan. taas oo yoolkaygu ahaa. laakiin sababtaan u soo noqday kaliya taas maaha. waxaan u soo noqday sidoo kale in aan idinla wadaago tips iyo tricks iga caawiyay in aan habkan aan u hadlayo imikaad arkaysaan iyo editing skill-ka ka muuqda muuqaalkaygan habkii iyo hanaankii aan ku gaadhay, xirfadaha waqtiga u baahan tahay iyo kuwa aan u baahnayn iyo all the stuff aan ku dhaamo. waa haddii laakiin aad aad channelka subscribe garayso oo ila socoto muuqaalka xiga. See you in the next video. Bye bye.